السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إذن سلامية أنت فرحسن كل إتهتا داد فرحسنين كسو دواada شاه haddii aada faraxsanaa adaka walaalayaal iyo gabdho iyo wiilal aada ayaan idin soo dhaweynaynaa. run ahaantii familiga ayaa kamid tihiin, aada umahadsantihiin inta ina la socoto, inta isoo wacdo messengerha iga soo wacdo aan isbaran aada baan idin salaamaya haddaad daawanaysiin. marka taa ka gudbo fadlan haddaad igu cusub tahay subscribe, like, saar commentina ka bixi. waxaan rabaa sheekadii halka intaan ka wado. clipkayga hore maana daawanin, inaan soo daawaday ahayd dhamaashadeeda markaa sidaan kusoo xasuusto. odaygii shahu iisoo sameeyey, sheemku isoo sameeyey jalbihi intuu soo dhigay buu wuxuu yiri Ibrahim iguurso. aniga run ahaantii way ila dhacday taayade, arrin aada iyo aada ila dhacday ahayd. marnaba isma lahayn wuu ku weydinayaa mise wuxuu kaa codsanaya inaad isguursatiin. sababtoo tahay dib ayuu isku dhigi jiray xiriirka xaggeeda, maadaama uu ogsoonaa inaan aniga dhoofayo oo xagga ingiriiska aan rabay inaan aado oon u socdo. marka iyada xoogaho jaceylkiisa ma dareemin inuu yahay 100%. dib ayuu isku dhigaya, anigana sidii dib ayaan isku dhigaya. marka waxay igu noqotay surprise maxaa Soomaaligu yiraahdo, waa ereyaalka iiga gooya camal ay kamid tahay. adiga surprise ayay ii noqotay. isla markiina haddee waayahay ma dhihin, waxaan ku yiri makasoo fikiraan ku yiri. wuxuu asagoo markaa xoogo dib u yara fadhiistay wuxuu yiri waay kasoo fikir. marka maadaama xaafadiisa joogay, anigana magaaladan waagaa degnaa. magaalada iyo meeshii aan isaga degan yahay hadda aan deganahay 1 saac ayaa loo socdaa baabuur. marka xaafadu igeeyey, anigana shaqaan qabay, shaqadayda ayaan iska watay. dad marka ayaga aan garanayo oo saaxiibo ahayn ayaan la tashaday. yar Mareykan joogo, yar Finland inuu joogaan jeclahay, dibdam uma arag, xiriirkeen wuu dhumay. yar Ingiriis joogo, yar Canada joogo oo aan saaxiibanahay. marka nin walba markaan la tashaday haddee nin walba dimogta fikradiisu ayuu leeyahay. waxaan ku laabtay ninkii directorka meesha ka ahaa oo madaxda ka ahaa organizationka ururka markaa meeshaan isku baranay. labadeenana wuuna yaqaanaa, si fiican inoo yaqaanaa. marka markaan u sheegay buu asagoo faraxsan oo qosla u dhahay congratulation, hambalyo. markaasa waxaan ku yiri maya ma aqbalin. wuu weydiiyey laakiinse ma aan aqbalin. marka wuxuu yiri sababtaad u aqbalin maxay tahay? waan u sheegay anigu waxaan ku yiri haddee ingiriiskan u socdaa, haddii markaa maanta aan guursadana waxay noqonaysaa inaan halkan dego. haweenkiina waan ka hadalnay arrinta ayada. aan u sheegay waxaan dhahay aniga xiriirkaaga ma goonayo, qof wanaagsana tahay, xiriirkeen inuu si socda ayaan jeclaan lahaa. balse haddee maadaama ingiriiska mar walba tagto, anigana aan xagga deganahay, waan is arkaynaa. haddii aan sharax helana waan soo laabana, waan is arkaynaa. fursad ayaan isku yeelanaynaa. marka asaga ma rabin marnaba inaan ka fogaado oo
sidaas lacaligeed ayuu ii weydiiyey inaan aan guursado. marka alaa kulli xaal ninka meesha madaxda ka ahaa markaan aan u sheegay aan ku yiri hadee aniga inaan dhoofaan rabaa, ingiriiskan u socdaa, howlahayga oo dhan way soo dhamaadeen muddo. hadda Soomaaliga waa iska garanaysaa, Soomaali haddaan nahay buufis ay nagu jiro, marnaba inaan kasoo salgaarno meeshaan u socono misaba ma ahane ma degno oo ma degeyno. marka anigana buufiskaas aad iyo aad ayuu igu jiray, weligeega ayaan rajeynaya inaan wadankan iskaga baxo.